xog khatar ah. Turkigu waxa uu dagaal ba'an ugu jiraa sidii uu u gaari lahaa madax bannaanida dhaqaalihiisa. Faransiiska oo yaaban iyo doolarkii oo hoos u sii socda. Liiraha Turkiga ayaa kor u kacday iyadoo qiimaheedii soo ceshatay 33% kadib markii uu hadlay madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan isagoo gaaray 12.27 marka loo eego doolarka. madaxweyne Erdogan oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee Ankara ayaa sheegay in dalkiisu uu bilaabi doono hab maaliyadeed oo cusub oo ogolaanayo in la gaaro heer la mid ah faa'iidada suurtagalka ah ee lacagaha qalaad iyadoo la ilaalinaya asalka liirada. isla arrintaasi saxaafadda caalamka waxay aad u hadalhaysay hadalkii madaxweynaha Erdogan ee saamaynta wanaagsan ee uu ku yeeshay lacagta liiraha Turkiga iyadoo wargeysyo badan ay warbixino ka qoreen siyaasadda dhaqaalaha Turkiga ee hoos u dhigista heerka ribada si loo gaaro madax bannaani dhaqaale. kanaalka France 24 ayaa boggiisa rasmiga ku daabacay warbixin ciwaankeedu yahay madaxweyne Erdogan waxa uu wadaa dagaal dhaqaale oo madax bannaani ah. kanaalka ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Turkiga uu ku jiro dagaal dhaqaale oo madax bannaani ah kaasoo uu u muuqatay inuu sii wadi doono si walbaba. wargeysku waxa uu tilmaamay in banka dhexe ee Turkiga uu 4 jeer oo isxigta uu hoos u dhigay lacagta dulsaarka taa oo ka imaaday 19% ilaa laga soo gaaro 14%. waxa xusid mudan in madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan oo haddii la soo dhaafay xaqiijiyay in dhaqaalaha dalkiisa uu ku sii socon doono sida uu dhigay sharciga dhaqaale ee suuqa xorta iyo in Turkiga uu dagaal ugu jiro madax bannaanidiisa dhaqaale isagoo tilmaamay in Turkigu yahay kan kor u qaadi doona kaydka sarifka lacagaha qalaad ee bangiga dhexe ee aanu ahayn shisheeye. Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyay sida ay dowladdiisa u doonaysay inay gaarto xasillooni dhaqaale iyo inay yareyso isbeddelka sarifka lacagaha qalaad iyadoo la sii wadi doono u hoggaansanaanta shuruucda suuqa xorta iyo in la dhiirigeliyo wax soo saarka, dhoofinta iyo maalgashiga. hadalladan kadib liiraha Turkiga ayaa kor u kacay 33.2% isagoo gaaray 12.27 56 marka loo eego doolarka.